سونيل شيتي mid ka mid ah aktarada aadka loo xiiseeyo aflaamtiisa aktar magacyo badan loogu yeero sida Balwan Sunil Annai sidoo kale Man of Bollywood haddaba waxaan la wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah jalaagan balse intaan u gudagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa channel ku soo biirto muuqaalka dadka ee shalaaga noo saar si share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal Sunil Sheti waa mid ka mid ah aktarada aadka loo xiiseeyo aflaamtiisa waana aktar taageero badan ku leh gudaha Soomaalida marka la eego aktarkani waxa uu dhashay 11 Agoosto sanadii 1960 waana 63 jir wuxuu fanka intii ku soo biiray sanadii 1992 filimkiisii ugu horeeyay Balwan ayaa lagu yeeray waana filimka Soomaalidu ay ugu magac dareen Sunil Sheti waa mid ka mid ah aktaradii ugu awoodda badnaa 90-meeyadii ama bartamii 90-meeyadii ilaa dhamaadkii 90-meeyadii jalaagan wuxuu aad u taageeraa jalaaga caanka ah Amitabh Bachchan dhanka hablahan wuxuu aad u taageeraa adishadii barnaamijka caanka ah ee Nargis waa hooyada dhashay jalaaga caanka ah Sanjeedud iyo sidoo kale Kajal Maduri iyo sidoo kale Sharmila Thakur waa sidoo kale hooyada dhashay jalaaga lagu magacaabo Saif Al Khan jalaaga Sunil Sheti wuxuu ka soo muuqday aflaam caan ah Soomaalida aad u xiiseeyaan daawashada inkastoo aflaamtu ka soo muuqday halkan aan lagu soo koobi karin haddana waxaan isla eegi doonaa aflaamta ugu caansan Soomaalida aad u xiiseeyaan daawashadiisa kuwa uu ka soo muuqday jalaagan saaxiibayaal filimka ugu horeeyay aan soo qaadan karno waxa kamid ah filimka caanka ah Mohra oo sanadii 1994 soo baxay Dilwale 94 soo baxay Qaxar oo sanadii 1997 soo baxay Border oo sanadii 1997 soo baxay Hiravir oo sanadii 2000 soo baxay sidoo kale filimka caanka ah Krishna oo sanadii 1996 soo baxay iyo sidoo kale filimka caanka ah Dadkan oo sanadii 2000 soo baxay saaxiibayaal haddaan eegno markaan jalaagan iyo xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay hal ilaa ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal inta aan guda galin xaqiiqooyinka jalaagan laga diiwaangeliyay waxa xusid mudan in jalaagan uu guursaday gabar lagu magacaabo Mana Sheti sanadii 1991 waxay u dhashay laba caruur kuwa lagu kala magacaabo Ahan Sheti iyo sidoo kale Titiya Sheti labadaba waa aktar waa wiil iyo gabar saaxiibayaal xaqiiqada horeysa jalaagan waxay saaxiibo dhow yihiin jilayaal uu kamid yahay Sanjeedud iyo sidoo kale Atisha caanka ah ee Rafina Tandon xaqiiqooyin kale waxa qayb ka ah jalaagan waxa leeyahay sanadihii ugu wanaagsanaa ee fankiisa marka la eego waxa weeyaan sanadii 1993 ilaa 94 maadaama loo daawado aflaam caan ah waa uu kamid yahay Mohra Dilwale waqti Hamara iyo sidoo kale Anti sidoo kale xaqiiqooyin kale qor jalaagan waxa kamid ah waxa leeyahay Sunil Sheti waa mid kamid ah aktarada farakutiriska ee heesta awalmarinta Filmfare Award waxaan la siiyay hal jeer wuxuu ku qaatay filimkii caanka ah Dadkan ama awalmarinta Filmfare Award Best Villain ka balaadarkii ugu wanaagsanaa oo lagu siiyay Dadkan sanadii 2001 xaqiiqada ugu dambeysay jalaagan waxa kharash ku aad ama aad u xiiseyn jirtay ama aad u jeclaan jirtay atrishada lagu magacaabo Sonali Bandra waa mid kamid ah atrishadii ugu caansanaa Bollywood ka soo maray bartamii ilaa dhamaadkii 90-meeyadii haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeeyaa saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinkii koobnaa aan kala wadaaga jalaaga caanka ah Sunil Sheti fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like noo saar si share gareeyo la wadaaga asxaabtaada oo aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena